salaamullaahi calaykum. soo dhowaada saaxiibadeen eelays. sidee noloshu noqon doontaa bilaa xayawaan? waxaan rajaynayaa inaad ku raaxaysan doonto muuqaalkan, kaasoo aan ku arki doonno sida ay xayawaanadu u badbaadiyeen saaxiibadood wakhti ay ku jireen xaalada adag. eygan waxa uu diiday dadka oo ay ku jiraan ciidanka boolisku inay u soo dhowaadaan saaxiibkii kadib markii uu gaadhi jiray. eygan waxa uu ahaa mid markasta fadhiya madaxa saaxiibkii. markii uu u soo dhowaado ninka booliska ah, waa uu ku qaylinayay isagoo u diidaya in la taabto saaxiibkii. aan daawanno sida eygan u weeraray labada nin kadib markii ay u soo dhowaadeen saaxiibkii, halka saaxiibkii uu ahaa mid ku mashquulsan casho samayn. qoyskan waxay ahaayeen kuwa soconaya waddada, laakiin wax yaab ku noqotay qaabka uu isku beddelay shakliga bisadooda kadib markii ay aragtay ay soo socdo waddada kaasoo la socda saaxiibaddii. bisaddan waxay dareentay dhibaato ku soo socotay qoyskeeda, sidaas ayayna u bilowday inay ilaaliso, eyganna ula dagaalanto. muuqaalkan kale waxa uuna tusinayaa in xayawaanada qaar ay baari u yihiin saaxiibadood. markii eygan arkay qof soo xidhay kartoon u eg diinaasoorka kaas oo u soo dhowaaday saaxiibkii, waa uu ku qariyey waxaanu isku dayey inuu ka fogeeyo saaxiibkii. eygan kale waa uu xanaaqay markii uu arkay qof kale oo dharbaaxaya saaxiibkii, markaasna waxa uu bilaabay inuu ku qayliyo kana dhiciyo saaxiibkii. eyda iski ee quruxda badan kana muuqanaya fidyowga waxay sida booligaadhka u ilaalinayaan saaxiibkood, kaasoo lacag kala baxaya mishiinka lacagta, waxaana inoo muuqdaa qaabka isku diyaariyeen iyagoo ilaalinaya saaxiibkood. bisaddan ma awoodin inay daawato ninkan isagoo dilaya saaxiibkeed, waxaanay si dhaqsaa u soo dhex gashay iyadoo ku dhigtay gacanta ninkan dilaya saaxiibkeed. waa ay qaniintay iyadoo u diidaysaa in la taabto saaxiibkeed. muuqaalkan kale qoyskan waxa ay sameeyeen tijaabo ay tijaabinayaan eygooda, isagoo mid iska soo dhigay tuug kadibna soo galay guriga, laakiin waxaa si dhaqsaa ugu soo booday eygii isagoo ku bilaabay inuu ku qayliyo kadibna la dagaalo. eygan waxa uu qoorta dheer ku dhigay shimbirtan isku dayeysay inay weerarto saaxiibkii. shimbirtan waxay ahayd mid dhib badan, waxaanay ka soo baxsatay eygii iyadoo mar kale soo weerartay ninkii, laakiin eygii ma quusan, waxaanu mar labaad ku dhigay garabka kadibna ka fogeeyey saaxiibkii. sacan waxa uu isku beddelay dilaa kadib markii loo soo dhowaaday ilmaheeda yar. ninkan waxa uu adeegsaday dameer kadib markii uu ninkan doonayay inuu eego xaaladda ilmaha yar ee hadda dhashay. dameerkii waxa uu dhowr harraati ku dhuftay saci isagoo ka celinaya inay waxyeesho saaxiibkii, ilaa markii dambe uu ninkii ka dhammaaday isagoo eegay xaaladda caafimaadda ilmaha yar. waxay duubtay kamarada ku xidhan waddooyinka shimbirtan oo doonaysay inay weerarto ninkan iyo ilmihiisa yar. markiiba ninkii waxa uu qaaday ilmihii yaraa, halka uu eygii shaqo ka qabtay shimbirtii isagoo u diidayay inay soo gaadho saaxiibkii iyo ilmaha yar labadaba. aan aragno qaabka uu isku beddelay xaaladda eygan kadib markii uu arkay saaxiibadii oo la dilayo ayna dilayso gabadh kale oo ay walaal yihiin. kamarad kale waxay duubtay wiilkan yar ee albaabka taagan, kaasoo ugu soo dhowaaday eygan, laakiin sikadiisa waxa uu aragtay bisadii guriga, taasoo markiiba bilowday inay weerarto eyga kana fogeyso ilmaha yar. kamaraddan ku xidhan mid ka mid a xafiisyada waxay duubtay ninka iskale xafiiskan oo uu soo weeraray nin tuug ah. nasiib wanaag ninkan waxaa la joogay eygiisa, kaasoo markiiba weeraray ninkii una diiday inuu soo galo xafiiska.
waxay u egtay inuu eygan la xanuunsaday kadib markii uu arkay saaxiibkii oo la garaacayo. inkasta uu ahaa tijaabo, haddana waxaan arkaynaa qaabku u soo kala dhex galay eygan isagoo isku dayaya inuu badbaadiyo saaxiibkii. keliya maaha bisadaha iyo aydu xayawaanada keliya ee ilaaliya saaxiibadood. neefkan lo'da ah waxa uu caddeeyey inuu daacadu yahay saaxiibkii. tijaabadan ay sameeyeen dhallinyarada mid ka mida waxa uu iska dhigay inuu dhulka ku dhacay, halka uu kakalla dul taagan yahay qori uu iska dhigayo inuu garaacayo. markiiba waxaa soo carartay lo'dii iyadoo doonaysay inay badbaadiso saaxiibkeed. kadib markii faraskan u soo dhowaaday gabadhan uuna ursaday lugaheeda, waxaa si dhaqsaa uga falceliyay aygeedii, kaasoo ku qayliyey faraskii sidaan ku arkayna muuqaalka. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso eygan waxa uu ka qabanaya baaskiilkan. eygan cajiibka ah waxa uu ilaalinaya baaskiilka saaxiibkii isagoo sugaya inta uu soo noqonayo. kadib markii uu ninka yimi, waxa uu koray dhanka dambe ee baaskiilka iyagoo sidaas ku raacay labadan saaxiib. kamarada ku xidhan gurigan ay ku nooshahay gabadha da'da ah waxay duubtay tuugan soo galay guriga, laakiin markiiba waxa uu la kulmay eygan oo albaabka ilaalinaya. markii hore tuugu waxau isku dayey inuu dejiyo eyga, laakiin waa uu ka diiday isagoo ku bilaabay qaylo iyo inuu weeraro ilaa uu meesha iskaga cararay tuuggii. eygan waxa uu ilaalinayaa bisaddan isaga la joogtay isagoo ka difaacaya ay kale oo doonayo inuu weeraro bisaddan, laakiin eyga weerarka soo qaaday isma dhiibin ilaa markii dambe ay bisaddii joogi kari weyday, bilowdana inay weerarka qayb ka noqoto meeshana ka eriyaan eyga soo doontay. muuqaalkan kale waxaan ku arkaynaa bisaddan waxay sugtay inta uu dagaalku ka bilaabmayo. kadib markii uu dagaalkii bilaabmay waa ay soo weerartay iyadoo badbaadinaysa saaxiibadeed. eygan waxa uu ku sugnaa xaalad warwar ah isagoo bilaabay inuu ka baxsado gacanta ninka haya. markii uu ka baxsadayna waxa uu toos u aaday saaxiibkii oo xanuunsanaya, kaasoo ragga wax badbaadiya ay doonayaan inay u qaadaan dhanka dhakhtarka. ninka muuqaalkan duubaya waxa uu iska soo dhigay qof kale isagoo soo beddeshay dharkii wejigiisana soo qariyey. kadib waxa uu soo galay gurigiisa. markii uu doonayey inuu kor u fuulo jaranjarta, waxa uu meesha ku arkay bisadiisii oo yaaban iyadoo ku jirta diyaargarow dagaal iyo inay isaga u diido inuu koro qolka sare. markii hore bisaddu dib ayay u noqotay, laakiin ugu dambeey waa ay soo weerartay kuna qasabtay ninkii inuu dib u noqdo. faraskan madow waxa uu badbaadiyey saaxiibaddii isagoo ka badbaadinaya dameerka dandaansiga badan, kaasoo soo weeraray saaxiibaddii isagoo istaagay waddada una diiday inuu u gudbo dhanka saaxiibaddii. labada nin waxay soo xidheen dhar waaweyn iyagoo doonaya inay soo galaan gurigan. eygan waxa uu ahaa mid ilaalinaya gurigan. kadib markii ay fureen albaabka, waxaaba meesha taagan oo diyaara eygan. waxa ay isku dayeen inay soo galaan, isna waxa uu bilaabay inuu ku qayliyo lana dagaalamo, waxaana badbaadiyey dharkan waaweyn ee ay soo xidheen. bisaddan waxay diiday in loo soo dhowaado saaxiibkeed, waxaana dhowr jeer meesha ka eriday eygan mar kasta oo silaa u soo dhowow saaxiibkeed. waad ku mahadsantahay daawade sida quruxda badan ee noola soo gaadhay dhammaadka muuqaalkeenna maanta. fadlan muuqaalka like saar, ku soo biir oo ka mid noqo saaxiibada Elays.